good. Alright, marka meesha yar ee gacanta ka muuqato ayaa soo taabsan doonaan marka isbarasho weeyaan. Waxaa ugu horeeyo horta sessionka waxaa soo jeedin doono anigoo ah Ustaad Maxamuud Axmed Xaaji oona macalinka koorsada bixin doona ah. Marka ajandaheena ayaan rabaa inaan ka hadlo. Marka ugu horeyso waxa waaye we will get to know each other. Annaga ayaa isbaran doono. Waxaan rabaa marka dhowr qofood oo gacanta soo taagato si aan Janus u siiyo magacooda iyo meeshay joogaan iyo siday wax ka bar ku soo ogaadeen iyo filashadooda inooga sheekeeyaan oo hal daqiiqo aan siino. Gacmaha soo taagta. Waxaa markaasi kadibna inoogu xigi doono know your teacher. Macalinkaaga xoogaa hordhac yar ayaa laga samayn doonaa. Waxaa kaloo ayadana laga hadli doonaa ama aan ka hadli doonaa wax ka baro academy iyo taariikhdooda kooban. Waxaan kaloo ka hadli doonaa koorsadan iyo waxa ay tahay iyo qaybaha ay ka kooban tahay iyo sidaad uga faa'iideysan kartid. Waxaa kaloo ayadana ka hadli doonaa sida applicationkeena wax ka baro college ama wax ka baro academy loo isticmaalo ayaan ka hadli doonaa ayadana. Marka soo dhawaada, let's break the ice. Dhowr qofood ayaa filaya inay gacanta u taagan tahay. Good. Maxamed Biriye ayaa ugu horeeya qofka gacanta u taagan tahay. Maxamed Biriye soo dhawow, magacaaga iyo meesha joogtid noogu bilow. Maxamed Biriye mikrofoonka furo. Maxamed Biriye waa kaa gudbeynaa haddii mikrofoonka furan kari weyso. Waxaan u gudbeynaa Shukri Warsame. Shukri Warsame mikrofoonka furo adiga haysto. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكري هل كيكون نوشاه؟ وهاي كنا لاني معنا. يا؟ وهاي كنا لاني. Ohio, United States. ما شاء الله. Ohio so wow شكري. Why do you want to learn English شكري؟ محنا معي. maxay tahay sababta kugu kalifaysa inaad luqadda barato? maxaa caqabada aad ku haysato maxay tahay aad rabti inaad xalisid? caqabado badan baa iga haysto luqadda oo barasho hadday noqoto bulshadii inaan la macaamilo la dhex galo waxyaaba badan baan ugu baahanaa inaan barto luqadda. Good. Shukri, filashadaadu maxaa waaye wax ka bara college aqoon hore ma u leedahay? maxaase naga filanaysaa? والله أقول هرب إذا مدهي وحكوا أركي فيسبوك أنكوا أركي هاي ربل إن شاء الله تتابي إن شاء الله حنجيني أنا في عنك هادي شغري وما سنتها بقولك وبقول محمد بريا مركلة سينا. محمد بريا هنديات كيف إذا سنكرته مركلة محمد مود أيوة كجرا وكجود بينا أبتن محمود أو جود بينا أبتن محمود قف كيو قرنتها. السلام عليكم. عدكم مقلي سامعني. هادي هذا لقوم مغلا. مقلين my name is Optal Mahmoud. I live in United Kingdom, UK. Okay. And I live here a long time. I'm not the beginning of English. I'm the mother of the raising for the 4 children. I live here a long time, more than 20 years. More than 20 years, okay. I'm doing for the assistant nurse in this country now. After when my children growing up, so I want to learn more practice of English. Well done, good. Upton, waxaan filayaa inaad inshallah I hope you will succeed in your journey to learn English, and your English is already doing wonderful, so just keep going. So, why do you want to learn English? Sababtu maxay tahay? Yeah, because you know that normally when you're doing for the assistant nurses, you have to do it for the more rating. Oh, assistant nursing. Okay, can you tell me more about what is that? And because you want to do it for the medication, to give it for the patient for the medication, so you have to memorize for the everything. So I have to fluent to do it for the writing English. I don't want to check for the dictionary or the anything. Good. So you mean assistant nursing? Yeah, assistant nurse. Yeah. Okay. Assistant. Okay, good. I got it. Thank you. So, aqoon hore ma noo leedahay filashadaadu maxay tahay? No, just I chasing for the Facebook for your link. Okay. So you clicked the link on Facebook and you came here. Yeah. All right. I hope you will succeed in your English. Thank you, Optan. Waxaan ku dhiibayaa Anisa Noor. Anisa Noor, welcome. So dhawow. Anisa mikrofoonka furo.
All right, Anisa waa ka gudbeynaa waxaan u dhiibaa Xamda Cali. Xamda Cali, welcome please. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykum salaam, Anisa, go ahead. موسك ما كنا نقدر هلا هو My, go ahead. Haddii aad microphone qabsato, go ahead. يا شاف الشقة كنت هلا هو No problem. اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام السلام. يا لما انت Kaa qaad- السلام يا انت kaa قلت qaadnay. شفتوا Aad iyo aad waa kaa qaadnay. marka anigu waxaan ku noolahay Minneapolis magacayga Anisa Allah. Anisa, Minneapolis. Anisa, why do you want to learn English? Maxay tahay sababta luqadda u baranayso? Because environment-gan deganahay waxa waaye qof walba luqadiisa waa English Soomaaliga waa ku yar yahay guriga ba Soomaaliga la sugi kartaa ma fahanti Waa gartay marka deegaankii iyo dadkii in la tacaamulkooda u baahan tahay. waxaa iska qaatay shahaado sida gabadha hadda naga ka baxdo kale nurse assistant iska qaatay laakiin markii aan neersiinta dhex tago caadi istaalka ka shaqeynayo ma aragtay I feel embarrassed wallahi been ku sheegay wallahi okay I hope inshallah I feel so embarrassed because computer waa gali karaa I know how to write it, everything waa qaana laakiin luqad markaan ku hadlaayo I can explain markaan waco patientka markaan waco kale I can explain the doctor what I do iyo waxaan qabtay ma qaban karo. Wow, okay. I can feel your pain inshallah. Anisa dareenkaaga dhibka ku haysto dareemi karaa aniga America waa ku noolaaday waana arin asaasi ah weeyaan markii aad u baahan tahay dadkiina la dhafal gasho haddana aadan luqadii ku hadli karin sida rabtaad u sharxi karin waa xanuun weyn weeyaan. Then they're asking me how did you get involved like just a question. Yeah, then I say I can't say no someone help me just waxa waa cheering ina sameynaysa ku arkayaan mugta. Okay, I see. Thank you. And Anisa markii kugu horeysmay wax ka baramayso waa nagu cusub tahay. So hore u taqaanay. Ma wada ku cusub Facebook aan ku arkay maalinta. Anisa waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa laba qofood kale aan siinayaa waa soo gabagabeynayna qaybta xigta u gudbi doonaa. Xamda Cali, next please go ahead Xamda microphone qabso. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. soo dhawaad Xamda. waan dhawahay ana waxaan ku noolahay dalka Mareykanka. waxaan ka soo arkay marka waxaan jecelahay in aan barto maadaama shaqadayda waxaan ka shaqeeyaa iskuulkaas waxyaabo badan baa loo baahan yahay macallimiinta caawisaanahay in bulshadii communicationka wixii dhan uu adeeg yahay sidii waalidka wax loogu sharaxayo ilmihii wax walba ay adeeg yihiin marka waxaan jecelaystay inaan luqadda aan moor sii barto aan bulshadii u dhex galo oo levelkayga waxaad moodaa shahaadadii aan haysto iyo inay kala sareeyaan levelka aan maxaa la shaqada taagan tahay shahaadada ay haysato iyo levelkaada luqadda Englishka inay kala sareeyaan okay marka gaabkaas inaad dhamaystirtaa rabtaa oo soo buuxiso inaan dhamaystiraa rabaa insha Allah waa mahadsantahay Xamda waxa u gudbayaa caqabad baa yar jirta xilligan shaqada galoween hadda waxaan galayaa 20 daqiiqo kadib marka si aan u baran karaa aniga oo kale xilli 8 saac kadib aan shaqo ka soo baxaya casharadu sidan laguma barto live-kan laguma barto casharadu waa casharo duuban waa xilli walba aad gali doontid live-kan waa live oo kulan hordhaco isbarasho weeyaan insha Allah wayna ku fududaan doontaa ma sha Allah haye macluumaad mudan waxaan ku soo gabagabeynayaa Xasan Guure Cabdi Xasan Guure go ahead microphone qabso 1 minute haysta Jamaal Maxamuud fadlan muud galiya Jamaal Maxamuud dhawaq badan ka soo baxoyo Xasan Guure go ahead Alright guys, Xasan Guure waqtigii ka dhacay waan ka gudbeynaa insha Allah session-keena bilaaban doonaa 1 hour ayuu qorshaha yahay inaan ku dhameeno marka waxaan rabaa intaan barnaamijka guda galin marka hore dhamaantiin horta mood ayaan idin wada gali doonaa oo lacala hadii uu jiro qof iloobay oo kale microphone-ka agtiisa ka furan yahay oo kale oo buuqsi oo san ugu furin dhamaantiin mood ayaan idin wada galin doonaa marka moodka idin galiyo session-ka ayaa inoo bilaabanayo sessionka markuu inoo bilowdo oo aan sharaxaadii aan dhameeyo insha Allah haddana waa idinka furi doonaa si markaasi su'aalihii aad qabtaan aad ii weydiisaan marka intay hawshu socoto haddii lacala internetkayga idin soo gaari waayo ama wax cilad imaado ama wax xayira ama codka idin soo gaari waayo ama si uun cilad u imaado qaybta qoraalka igula soo wadaaga qayb waxaa jirto oo
qoraal ah ayaa jirto qaybtaas qoraalka igula soo wadaaga markay qoraalka igu soo sheega waa problem ayaa jiro iyo wax lamid ah ayaa soo dhehi doontaan insha allah marka 1 minute waan bilaabeynaa 1 minute ha la isiiyo xogaar internetka ayaan rabaa inaan bedesho good all right waxaan filayaa marka waa inoo bilaabanaysaa waa sessionka waa inoo bilaabanayaa waxaan filayaa marka inaa shaashadeedana si fiican aad u arkosan haddii laakiin si kale cilad u aragtaan mar walba qoraal noo soo qoray hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan kaloo idinka codsanayaa in intuu sessionka socdo aad si buuxdo ii dhegaysataan maxaa yeelay su'aalo badan oo maskaxdiina ka guuxayo jawaab ayaa halkan uga heli doontaan laakiin haddii livekii aad isaga jirto oo howl kale aad ku maqan tahay oo aad sii jeedid ama howlo kale mobilekaaga ka qabsanaysid ama gurigaada aad ka qabsanaysid hadhowtii su'aalo badan iyo ama hadallo badan oo jawaabtooda sessionka aan ku bixinay ayaa waxay dantu kalifi doontaa inaad su'aal ahaan inoo soo weydiisid taasoo marka waqtiga ciriiri ka dhigi doonto marka waxaan kaa codsanayaa inaad si buuxda ila joogtaan hadduu ilaahay ka raali noqdo wixii su'aal ah ee aniga aan sharaxaada kaga booday ama aan ka jawaabin ee maskaxdaada ku jirane janis ayaan kuu siin doonaa gadaal markii uu sessionka inoo dhammaado ayaan fursadaas ku siin doonaa waa isla soconaan filayaa soo dhawaada mar kale waxa weeyaan waxaan ku bilaabeynaa about your teacher macalinka ayaan ku bilaabeynaa macalinkaaga oo taariikh kooban magacaygu waa horta maxamuud axmed xaaji waxaana ku dhashay magaaladan muqdisho ayaan ku dhashay waxaana ku koray magaalada nairobi dalka kenya ayaan ku koray kadibna markaan jaamacaddii dhameeyey waxaan usoo laabtay magaalada muqdisho kadibna waxaan u safray america ayaan u safray 2017 oo halkaas ayaa muddo aan ku noolahay kadibna hadda 2 sano ugu dambeysay xamar ayaan ku noolahay oo america waan kasoo laabtay marka safaradeeda nolosheeda kooban waa kaasa waxaa educational backgroundkayga aan u gudbo waxbarashadeeda heerkayga waxbarashada boqolkiiba 90 waxaan ku qaatay magaalada Nairobi dalka Kenya ilaa laga soo bilaabo primary oo dugsiga hoose ah ilaa jaamacadda Nairobi ayaan ku qaatay waxaana ka qalin jabiyay maadada business management ayaan ka qalin jabiyay waxaan kadibna markaan America tagaynay waxbarashadeeda aad baan u sii horumariyay khaasadan midda teknolojiyada Nairobi inta badan waxaan ku qaatay businesska majorkayga business management ayuu ahay kadibna markaan America tagaynay maadooyin kale oo advanced ah oo teknolojiyada quseeyo sida web developmentiga iyo howlahaasi ayaan aad uga sii bartay iyo weliba luqadda Englishka ayadana marka halkaas tagay aan sii horumariyay waxaan hadda ahay arday diyaarinayo jaamacadda master's degree ama master's in business management MBA waa master's degree in business management waa heerka labaad ee jaamacadda ama masterka qofkii jaamacad soo dhigtay ayaa garanayo waxa MBA laga wado ama master laga wado ayaan diyaarinayo qaab online ahaan ayaan ku wadaa marka muddadii dheereed ardayga soo ahay weli kama bixin ilaa haddana arday baan ahaa insha Allah noloshuna waxa weeyaan intaan nooshahay arday baad ahaanaysaa ardaynimadu lagama weynaado 80 jir xataa markaad tahay weli waxaadan aqoonin ayaa jiro ama way aragnimadaada aysan ku tusin noloshu ku barayso xitaa hadduusan macalin ama iskuul aadan ka baranaynin marka ardaynimadu waa shay aad iyo aad u xiiso badan una macaan oo qofkii fahmo ama macaankeeda u dhadhamana aanan ka joogsan karinin mar walba inaad wax barato asii rabtaa marka insha allahu idinkan hadda waxaa meeshan u wada joogtaan waa inaad arday aad tihiin inaad ictiraafsan tihiin dad badanaa waxaa jiro bug aan mar aqrinayay ayaa wuxuu yidhi qofka markuu uu og yahay waxa uusan aqoonin wuxuu raadinayaa sidoo u doono lahay ayuu raadinayaa laakiin qofka markuusan ogeenin waxa ka maqan ama waxa uu raadinayo uusan ogeenin wax ma raadinayo micnaha dad fara badan hadda jiro oo hadda meelo kala duwan ku nool oo wadamadiina ku nool balse aanan ogeenin inay baahi luuqadeed haysato marka kuwaasoo kale ma soo raadsanayaan laakiin adiga hadda waxaad og tahay inay baahi luuqadeed ku haysato welina waxaa kuu sii dheer inaad sii raadsatay soo maahan marka ardaynimadu marka waxay ku baraysaa mar walba inay wax kaa dhiman yihiin wax kaa maqan yihiin ayay ku baraysaa marka horay ayaa usii soconaysaa noloshaada iyo garaadkaada oo sii siyaadaya marka sidaasi weeyaan alright teaching experience-gayga u gudba marka way aragnimadeeda dhanka macalinnimadeedu waxay bilaabatay markii aan dugsiga sare dhameeyey magaalada Nairobi xaafadda Islii qofkii garanayo ayaa garanayo iskuulo yaryar oo private ayaa jiro meelaha 6ka iyo 7ka iyo
12 street iyo Soomaalida meelahay deganaayeen maalkii maxaan lahaayay brifadiyada yaryar ee dadka Soomaaliya markaas ka imaado oo Kenya ku nool ama buufis u joogay ama arrimo ganacsi u joogay luqadda Englishka xisaabta Swahiliga ay ka bari jireen ayaa macallinimadeedu ay ka bilaabatay iskuul yar oo private ayaan luqadda Englishka iyo af Soomaali maahan luqadda Englishka iyo xisaabta dadka bari jiray ardada waaweynka adultiga dad waaweyn ayaa weligaa le wax bari jiray ciyaal wax ma barin ilaa haddana dadkii waaweynay ayaa weli dhex jooga marka muddo dheer ayaan soo waday ilaa inta jaamacadda dhiganayo dhan macallinimadaasi luqadda Englishka iyo xisaabtaasi ayaan dhigayay kadibna markii aan jaamacadda gabagabadii ahayd ayaan iska hakiyay iska joojiyay waxbaridii kadibna markii aan jaamacadda dhamaystayna waxaan kusoo laabtay magaalada Muqdisho halkaas oo aan ka bilaabay shaqooyin kale oo waxbarashada aan qusaynin kadibna 2014 waxaan aasaasay ama hirgeliyay wax ka baro academy ama wax ka baro college oo aan dib ugu soo laabtay waxbaridii markaas ilaa haddana weli macallin ayaan ka ahay waxaan aad u xiiseeyaa waxbarashada iyo businesska I am passionate in learning and business ayaan aad u xiiseeyaa good warkayga kooban waa kaasa wax ka baro college aan u soo gudubno wax ka baro college waxaan aasaasay 2014 si bilaa qorshe ayuuna ku aasaasmay xaqiiqdii markaan Nairobi ka imaaday xamar aan soo degay ayaa waxa igu dhalatay in wixii aan garanayo bal dadka la wadaag isdhaho inkastoo markaasi qorshahaygu uusan ahaynin barnaamijka sidoo hadda uu yahay ma uusan ahaynin meel aan nolol ka abuurtid sameey waxay ahayd bal wixii aad taqaanid dadka la wadaag marka waxaan sameyn jiray laptopkayga habeenkii ayaan casharada ku duubi jiray kadibna YouTube-ka iyo Facebook ayaan gelin jiray kadibna ardada ayaa ka faa'iideysan jireen computerka iyo waxyaabahaas maadooyinka Englishka iyo waxbaan barbari jiray ardada way ka faa'iideysan jireen feedback fiican ayayna soo celiyeen xaqiiqdii si part time ayaan ugu shaqeyn jiray waxna lacag ma soo gali jirin maalinta habeenkii aan jaanis u helo ayaan wax cashar gelin jiray habeenka u waayana waa iska seexan jiray afaanteen aan filayaa kadibna waxaa bilaabatay markii aan Mareykanka aaday 2017 waxaa helay gaab hal sano oo aan guriga aan fadhiyo oo waxna aan qabanaynin wax ka baro academy oo aad u soo kobcay oo meel fiican uu marayo markaasi kadibna waxa kale oo ayadana meeshaasi fursad aan ka helay in aan heli karay teknolojiyadii aan u baahnay markaasi adeegyadii aan u baahnay 2017 waxaan awood u yeeshay markii inaan mikrofoono fiican helo teknolojiyada iyo internet fiican aan helo oo ku shaqeyn karo kadibna waxaan go'aansaday inaan koorso dhameystiran aan duubo marka koorsadii marka duuba dadkina aad bay u soo dhaweeyeen marka kadibna waxaa u bedelay business ayaan u bedelay marka hore wuxuu ahay hobby ayuu yahay wax aniga xamaasad ama xiiso una iga hayso ayaan marka hore ku bilaabay kadibna wuxuu ii noqday meel oo business aan ka dhigi karo oo dakhli iga soo gali karo dadkana waxay ka faa'iideysan karaan markaas kadib waxaan u sameeyay hadaf ayaan wax ka baro academy u sameeyay hadafkaas oo ahay to provide high quality education without location restriction inaan daboolno ama aan soo bandhigno waxbarasho tayo leh ayadoo aysan locationku ama deegaanku qofka uu ku nool yahay aysan caqabad ku noqonin marka taas ayaa marka hadafkeenu ahayd ilaa haddana ay tahay waxbarasho tayo leh in loo soo gudbiyo locationkuna aysan caqabad ku noqonin inta badan online-nada waxaa lagu lamaaniyaa waxbarasho aan tayo lahayn in waxbarashada online-ka laga barto inaysan tayo lahayn in lagu caajisayo in macallinkii ardadu aad iskula falgelin oo cashiro duuban ama cashiro oo yaryar oo aan si fiican looga soo shaqeynin oo kale ardayga Telegram iyo meelahaas loogu soo diro oo kadibna labadoo maalin wadwato oo wax natiijo aanan oga imaanin marka taas ayaan rabnaa inaan meesha ka saarno waxbarasho u dhiganto midda iskuulada caadiga laga helayay ayadoo qof walba asoo gurigiisa iyo goobtiisa shaqo jooga marka hadafkeenu taas ayuu ahay ilaa haddana wuu yahay so maxaan qabanaa marka what do we do marka hore waxaan ku bilaabnay koorsadii ugu horeysay aan hawada soo geliyay waxaan ku bilaabnay maadooyinka computerka sida photoshopka excelka wordka waxyaabahaas ayaan dadka bari jirnay kadibna 2018 waxaan kusoo daray maadada Englishka ayaan kusoo daray iyo luqadii carabiga ayaan kusoo darnay way bateen markii dambe maadooyin fara badan ayaan kusoo darnay ilaa 10 maado ayaan gaarsiinay kadibna waxaa marka meeshaasi imaaday caqabad kale ayaa soo wajahday caqabadaas oo ah markii maadooyinka bateen in tayadii la control kari waayo ee tayadii aad hoos ugu dhacdo
marka mar walba hadafkeenuna wuxuu ahaa to provide high quality education without location restriction marka si aan tayadii u hubino waxaan sameynay 2020kii xilligii koronaha in maadooyinkii kale oo dhan aan ka takhaluso maadada looga baahida badan yahay oo ah luqadda Ingiriiska inaan focus ka saarno marka maadadaasi ayaan focus ka saarnay Ingiriiska ilaa haddana waan ku wadnaa English oo kaliya ayaa wax ka bar academy ka helaysa maadooyinka kale waan ka takhalusnay awoodeeni energy-gana waxa aan lahayn oo dhan waxa soo keenay inaan Englishkaasi ardada sida ugu wanaagsan aan uga qabtirno okay so marka sidee u shaqeynaa how do we operate qaabkee u shaqeynaa qaab shaqadeenu waa qaab aad u fudud qof walbana uu fahmi karo qof walbana uu la jaan qaadi karo casharadeen waa casharo duuban oo system ku diyaarsan application aad iyo aad u fudud isticmaalkiisa ayay ku diyaarsan yihiin marka casharadaasi goorma la qaadanayaa casharadaasi xilli walbo aad jeceshahay ayaa qaadanaysaa habeen maalin galab casir uma baahnid marka macalinka inaad sugtid si uu casharo kuu siiyo casharada way ku diyaarsan yihiin macalinka ayaa video kuu sharxayo ka dhagaysanaysaa waxa casharadii kula socdo videoska kula socdo layliyo iyo exerciseyo ayaa kula socdo oo lagu hubinayo aqoontaada iyo heerkaaga luqadda mar walba ama casharkaasi fahankiisa lagu hubinayo layliyadaasi exerciseyadaasi waa kuwa aad la falgeli karto oo isla markaasi natiijo kuu soo saarayo oo xilli walba aad ka shaqaysan karayso marka haddii aad maalintii oo dhan mashquulsan tahay habeenkii ayaa hawshaada qabsan kartaa haddii habeenkii mashquulsan tahay maalintii ayaa qabsan kartaa xilli cayaman malihid dadkuna hadda sidaa arkeeno waa ay kala fog yihiin qof ayaa shaashadda iga bedelay stop qof wax yar isu qof aan ugu falaadaya alright waxaan filayaa inaad shaashadeeda weli sii aragtaan shaashadeeda waa aragtaan aan filaa you're sharing your screen ها وارقنا معلم هي good marka waa problem jir marka hadii aad aragtaan Yeah, good alright good marka sideena ku sii wadanaynaa marka waxa online sessions online quizyadaasi waxa kale oo ku dheeraad ah waxa la dhaho accountability ama isla xisaabtan online inta badan wuxuu leeyahay in ardadu ay casharadu markay ay qaadanayaan ay og yihiin in casharku meesha ugu diyaarsan yahay cid ka war haysaysan jirin inay ka caajisayaan marka si aan caajiskaasi meesha uga saarno ardadu waxaan u abuurnay system isla xisaabtan ah oo isbuuc walba jadwal yar oo waxbarasho ayaa lagu abuurayaa lagu leeyahay isbuucani waxaan ka rabnaa tusaale ahaan oo kale aadan oo isbuucani waxaan ka rabnaa 10 cashar inaad ka soo shaqaysid 10 cashar xilliga doonto qaado laakiin isbuucani markuu dhamaado 10 cashar inaad soo gudbisid ayaa laga rabaa ayaa lagu leeyahay 10 cashar markii isbuucii marka lagu qabtay aad og tahay xoogaa yar way ka yara fiican tahay markii aadan cidna aysan ka warhayn marka si aan ardada ugu buush gareeno inay hadafkooda waxbarashadu ay meel uga gaaraan annaga marka waxaan u sameynaa isbuuc walba inaan ku cadaadino xoogaa pressure ku saarno si hore ugu sii wato accountability-gaasi ayaan sameynaa isbuuca markuu dhamaado ardayga waxa laga rabaa waxa la leeyahay waa la galayaa systemkiisa waa la fiirinayaa casharadii lagu ballamay inuu qaato iyo in kale haddii uusan qaadanin waa la weydiinayaa war aadanow war jimcaalow war caasho maxaa kugu dhacay casharkaasi casharada isbuucani aan ku ballansaneen waa soo qaadan kari weysay marka kadibna asaga ayaa laga rabaa sababta uu qaadan waa inuu sharaxaad ka bixiyo haddii uu qaatayna good job ayaa la leeyahay halkaaga kasii wada waxaa intaasoo kale kuusii dheer WhatsApp support group ayaa jiro oo ardada codadkooda ay soo dhigaan oo lagaga dhagaysto ayaguna ay ku falgalaan conversationska ay ku qaataan marar qaarkood iswacaan waxaa kaloo ayadana jirto 2 maalin oo live session sidaan oo kale aan usoo galo aniga aan qadka soo galayo toos aad ii helaysaan casharadii practice aan sameynayno speaking practice iyo conversation la sameynayo wixii su'aalo aad u baahan tahayna ama macalinkii aad u baahan tahay aad rabtay in lagaaga qabtirane aad ugu weydiin karaysid isbuucii 2 jeer oo 2 saacadood sidaan oo kale loo soo galayo marka waa nidaam comprehensive weeyaan casharada xilli walba qaadan kartaa layliyadii ka shaqaysan kartaa waxa og tahay inuu qof kula xisaabtamayo isbuuc walba hal section ama hal module laga rabo waxa kale og tahay in macalinkii isbuucii 2 jeer aad helaysid
marka waa barnaamij dhammaystiran weeyaan marka oo comprehensive ee marka haddii aad marka sidaa ugu talagalin u raacdid oo kale aad u qaadatid 100% guarantee weeyaan inaad luqadaada isbedel weyn aad ku arki doonto kuma dhahayo 100% luqadda waad ku hadli doontaa sida qof cadaan oo kale laakiin waxa weeyaan waa guul weyn ayaad ka gaari doontaa alright ka gudubno marka qaybta xigta u gudubno our curriculum manhajkeenu horta manhajka aan isticmaalno manhaj anaga aan sameyno ma ahan waa manhaj caalami ah weeyaan manhaj caalami ah weeyaan oo dunida oo dhan laga isticmaalo oo aan anaga inoo gaar ahaynin anaga inooma gaar ahan waa manhaj caalami ah Amazon iyo meel walbo ayaa laga helayaa buugaagta iyo manhajka jaamacadaha caalamka oo dhan ayaa isticmaalo nidaamka caalamiga ee CEFR-ka Commonwealth European Framework of Reference-ga waa ku base garaysan yahay imtixaanaadka caalamiga TOEFL-ka iyo IELTS-ka dadka diyaarinayo manhajka ay raacaan weeyaan ma fahanteen marka annaga marka maxaan qabanaa marka manhajkaasi maadaama manhaj caalami yahay af Englishna ku qoran buugaag oo yahay annaga waxaan ka diyaarinay koorso af Soomaali ku samaysan oo baahida bulshada Soomaaliyeed lagu dabaqay oo aad iyo aad u ballaaran ayaan ka diyaarinay ilaa 600 oo cashir ka badan ayaa marka manhajkii ka diyaarinay marka waa manhaj very comprehensive iyo koorso bulshada Soomaaliyeed loogu talagalay oo manhajkaasi uu asaas u yahay ayaa marka ku soo diyaarinay marka mar walbana waxaa ka fikiraynay mar walba koorsadani markii la dhisayay waxaan ka fikiraynay shanta tiir ee luqaddu leedahay waa readingka writingka listeningka speakingka iyo grammarka oo si wada jir isula socdo ayaa laga dhisayaa alright buugaagtan marka isticmaalaya waa kuwana buugaagtan DKEFE ayaa la dhahaa oo buugaag caalami ah weeyaan meel walba ayaa laga helaa Amazon ayaa laga helaa waxaa laga helayaa dukaamada buugaagta lagu iibinayo boorka ardada magacooda kaliya ku dhagan boorka wuu ka bax haye ardada kale wax u jeeda ma jiraan ما يستاهل raali noqdo waa mahadsan tahay abtan waa mahadsan tahay hadda bal fiirsha Yeah, I can see now all the books. Yeah, we can see now. Good. waa mahadsan tahay markay saan oo kale markay problem dhaco saas oo kale ila soo wadaaga good marka waxaan ka hadlaynay manhajkeenu sidaan ayuu u dhisan yahay buugaagtani ayaad meel walba aad ka heli karaysaan ayaa isticmaalayna waa buugaag caalami ah weyn dunida oo dhan laga isticmaalo oo maqal ay leeyihiin casharadoodan casharo si qurux badan loo sharxayo weeyaan af Soomaali ayaan anaga kugu sharxinaa anaga marka application-keena wax ka baro marka waxaad ka helaysaa koorsadii af Soomaali ku sharaxan buugaagtana online-kii dunida email walba ayaad ka heli karaysaa marka buugaagta helistooda ha ka walwalina anaga ayaa idinla soo wadaagayno linkiyadii emailihii aad ka iibsan lahaydeen ma fahanteen aan filayaa alright koorsadii aan usoo laabana marka wax ka baro college koorsada ku jirto koorsadani horta marka hore waxaa lagaaga baahan yahay waxyaabo inaad haysatid waxaa lagaaga baahan yahay marka hore inaad internet fiican haysato you are all good internet waa haysataan waxaa kaloo lagaaga baahan yahay smartphone tablet laptop wix uun adiga aalad aad internetka ka soo geli karto applicationka wax ka baro aad ku soo download garaysan karto haddii aadan applicationkii wax ka baro college aadan soo download garaynin play storeka ama app storeka gal soo download garay haddii aad computer isticmaalaysid applicationka uma baahnid markaas websiteka wax ka baro.com ayaa booqan kartaa koorsadu marka waxay ka kooban tahay laba qaybood ayay ka kooban tahay qaybta koowaad oo ah lower levelka levelada hoose levelka hoose wuxuu isugu jiraa laba buug ayuu isugu jiraa manhajka hadda kasoo hadlayay oo caalami waaye aan dhahayay waa level 1ka beginner book ayuu ka bilaabanayaa balse markii aan arkay duruufta iyo xaaladaha bulshada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin waxbarashada aasaasiga badidood laga soo bootiyay ama aanan soo helin waxaan dareemay in ay dadku u baahan yihiin wax la dhaho shuruucda higaada luqadda Englishka in la baro manhajku taasi meel ayuu iska dhigay oo kuma jirto laakiin baahi Soomaalida haysato oo ku badan weeyaan in shuruucda higaada luqadda Englishka aysan wada garanaynin inta badan iskuulada Soomaaliyeed marka aragtida oo kale luqadda Englishka laga barto qaarkiin iskuulo waa soo dhigateen aan filayaa maalinta ugu horeyso aad fasalka soo xaadirto bilaaba ayaa dhahdo waxaa lagaga bilaabayaa ABC markii lagu qoro maalinta ku xigtan how are you iyo conversation iyo sheeko ayaa lagula galayaa laakiin waxaa ka horeyso wixii aasaaska in la dhiso marka hore in higaadii shuruucdeeda la baro dhawaaqyadooda xuruufta dhawaaqyada dheer leh xuruufta dhawaaqyada gaaban leh xuruufta shibanaha ah aamusan xuruufta dhawaqooda isbedelayo waxyaabahaas oo dhan sharci ayaa ka yaalo sharci luqadda ay leedahay oo loo baahan yahay qofka inuu barto uu fahmo kadibna markaasi uu xaraf walba ka hor imaado
uu kicin karo ama uu qori karo macallimiintana dugsiyada qur'aanka arrintaasi aad iyo aad bay xil isaga saaraan markii dugsiyada qur'aanka aan dhiganaynay oo kale waxa ugu horeeya nagala bilaabay faatax ma aysan ahayn soo maaha alif axmaala ayaa noogula bilaabay saas ayaa lagu waday higaada ama ku dhawaaqida luqadda carabiga ama kicinta luqadda carabiga waxaa laga yaabaa 6 bilood la sanadka ugu horeeyo ilmaha in waqti badan la geliyo by the time cunugii higaada uu soo dhameeyo ama alif axmaalihii uu soo dhameeyo waxa weeyaan waa qof diyaarsan oo xaraf walba oo carabi ah meel walba uu ku qoran yahay kicin karo asagana qoran karo soo maaha faataxadii waxaas qoran karo marka sidaas si lamid ah luqadda ingiliishkuna waxay leedahay shuruuc ay leedahay oo loo baahan yahay in la raaco shuruucdaasi ayaa marka arday badan ka maqan marka taas ayaan ugu soo darnay levelkan buugga oo maxaa la dhahaye levelkani level 0 ugu soo darnay almar axmed muudgalya alright marka levelkaasi hal bil ayuu soconayaa kadibna waxaan u gudbaynaa levelka xigo ama level 1ka marka lower levelka labadaas book ayuu ka koobnaanayaa English phonetics book oo level 0ga ah iyo English beginner book ah oo level 1ka ah kadibna waxaan u gudbaynaa qaybta higher levelka ayaan u gudbaynaa qaybta higher levelka marka waxay isugu jirtaa laba level ayay isugu jirtaa levelka intermediate-ka iyo advanced-ga ayay isugu jirtaa marka ayadana 3 book ayay ka kooban tahay pre-intermediate book oo level 2 ah intermediate book oo level 3 ah iyo advanced book oo level 4 ah ayay isugu jirtaa marka afartaasi book oo manhajka ah iyo bookgan shanaad ee anaga aan ku soo darnay haddii aad isku qaadatid qorshaha waxa ugu talagalnay jadwalka sida aan ugu talagalnay marka u raacdid in aad 6 bilood aad koorsadii aad ku dhameyso in aad 6 bilood koorsadii aad ku dhameyso haddii aad jadwalkeena raacdid weeyaan haddii aad jadwalka raaci weyso isla xisaabtanka iyo jadwalka lagu dejinayo aad ka yara habsaanto way kugu dheeraan kartaa haddii imtixaan lagaa qaaday oo lagu yiri levelka dhexe ayaa laga diiwaan gelinayaa qaybtan sare ee higher levelka ayaa laga diiwaan geliyay oo 3dan buug ayaad qaadanaysaa ayaduna markaas qorshaha wuxuu yahay inaad 4 bilood aad ku dhameyso koorsadeena waan fahanteena filayaa good waxaan u gudbaynaa trial periodka ayaan u gudbaynaa trial periodka laba nooc ayuu u kala qaybsan yahay trial period marka waxa weeyaan waa hadda maanta koorsadii waa dahfurona waa idin bilaabanaysaa casharadii waa geli karaysaan laakiin lacag nigalama qaadin soo maahan koorsadu waa lacag waaye waad ogtiina filayaa laakiin lacag idiinma weydiinin sababta aan idin weydiin weyne waxa weeyaan waxaan idin siinay 10 maalin oo aad nidaamka aad kusoo gashaan oo aad ku tijaabisaan oo aad ku qanacdaan 10kaasi maalmood tijaabada ku jirto ama tijaabada waxyaabaha qaarna waa idin furan yihiin waxyaabaha qaarna waa idin ka xiran yihiin maxaa idin furan marka waxaa idin furan hal isbuuc oo tijaabo ah haysataan marka hore isbuuc ay ahaan jirtay laakiin ardada qaar ayaa waqtiga xogaar ku yaraado iska mashquul badan marka 10 maalin ayaa gaarsiinay waxaad helaysaa marka muddadaas isbuuca ah casharadii recordedka ahaa ee duubnaa videoska ahaa ee systemka ku jiray waxaad helaysaa exerciseadii ayaa helaysaa waxaa helaysaan ayadana groupka hadda ku jirtaan ayaa idin furi doonaa oo casharada soo dhigi doontaan lagaga dhegeysan doonaa wixii su'aalaha qabtaan nagu soo gudbin doontaan waxaa helaysaan buugaagta waxaa la socdo codad ayaa la socdo codadkaasina application ayay leeyihiin oo free ah oo aad soo download garaysan kartaa good waxaa marka jiro waxyaabaha qaar idinka xayiran marka waxaa idinka xayiran isla xisaabtan ma jiro isbuuca ugu horeeyo tijaabada aad ku jirtaan oo lacagta bisha weli lagaa sugaayo wax isla xisaabtan la dhaho ma jiro jadwal waxbarasho laguma samayn karo ee lagugula xisaabtamo marka tijaabo ayaa ku jirta waxaa lagu dhahaa casharadani gal tijaabi hadday ku anfacayaan waa kaasa hadday ku anfici waayaanna waa isaga baxaysaa laakiin hadday ku anfacaan lacagtaa soo dirsanaysaa kadibna jadwalkaadii waxbarasho ayaa lagu samaynaya waa fahanteena filayaa alright waxaa kaloo iigu xigo waxaa kaloo kaa xayiran ayadana labada maalin ee isbuuca ee live sessionka lasoo galo ayaa kaa xayirnaa doonto ilaa intaa lacagta bisha aad kasoo dirayso marka haddii aad lacagta bisha maanta aad soo dirto maalinteeda kale ayay ku dhamaanaysaa 15 bisha maanta 16 waaye 16 bisha haddii aad lacagta soo geliso 16 kale bisha ayay kugu ekaanaysaa jadwalkaagina waa lagu diyaarinayaa isla xisaabtankii iyo howlihii waa kuu bilaabanayaan live sessionkana waa soo gelaysaa isbuuc walbo waxaa kaloo kaa xayiran groupka weyn ee supportka ardadeena ee ku jirto ayaa kaa xayiran ma soo geli karaysid waxaasoo dhan marka waxaa uga gudbi karaysaa intaan taas ka hadlin laakiin hadda meesha waxaa arki kartaan screenshotkani aan ka qaadnay ardadeena oo live ku jirto gacmaha u wada taagan yihiin
conversation qaadanayo wada sheekaysi sameynayo waxyaabaha qaar qaldayaan oo kale la kaftamayo maxaa la dhahayay wixii ka qaldana loo saxayo 1 hour oo baashaal ah weeyaan 1 hour oo baashaal ah ayaan halkaasi ku haysanaa marka isbuucii 2 jeer oo min 1 hour ah ayaan soo galnaa marka aad iyo aad buu u xiiso badan yahay waxa kaliya hadda ardadaynu nagu amaanaan ama aadka uga helaan waxa weeyaan inay awood u helayaan inay macalinkii helaan oo practice-kan la sameeyo marka si aad uga mid noqotid waxa lagaaga baahan yahay oo kaliya lacagta bisha inaad soo dirto $30 waaye ama xawaalad ku soo dir ama Soomaali gudaheeda si uun u soo dir adiga si uun Soomaaliya gudaheeda lacagta ku soo gaarsiin karto ku soo gaarsii waxaana soo raacinaysaa $5 oo diiwaan gelinaya soo raacinaysaa $35 ayaa soo diraysaa kadibna casharadaadii iyo hawshii ka dhinneed oo ay ku dhamaystirmaysaa waa fahanteena filaya laakiin shardiga wuxuu yahay marka hore inaad casharadii aad qaadatay oo aad systemkii fahantay oo aad la qabsatay oo aad nidaamkii ku qanacday kadib ayaa markaasi lacagta soo diri doontaa numberkan ayaa kusoo diri doontaa whatsappkana waa lagaa caawinayaa insha allah whatsappka haddii aad u baahan tahay waa la hadli karaysaa numberkii lacagta lagu soo diri lahaa aawaya ayaa leehda oo lagu soo qorayaa kadibna lagu adeegaya hawsha ku dhiman waa lagu dhamaystirayaa waa fahanteena filaya thank you very much for your attention hadiyadda ugu wanaagsan the best gift of you can give to yourself is to educate hadiyadda ugu wanaagsan ee naftaada aad siin karto waxa weeyaan waa inaad wax barto weeyaan waxbarashadu waa hadiyadda ugu wanaagsan ee aad naftaada siin karto maxaa yeelay hadiyadda si walba qaali u tahay haddii aysan mar walba kula joogaynin qiimo ma lahan maanta haddii aad biisa macaan badan isku casuunto inta yar aad cunayso ayay ku dhalamaysaa soo maahan waxa waaye saacado kadib way ka dhamaato dhadhankeedu kuuma yaalo laakiin maanta wax yar oo aad baratay luqadda ingiliishka aad baratay oo maanta aad afkaada ku caanamaalayso oo tusaale ahaan hadda gabadhii dhahaysay nursing assistant baan ahay laakiin hadda embarrassed baa dareemaa oo markay dadku ila hadlayaan oo patientiga ama dhaqaatiirta ila hadlayaan oo kale luqadii ma afcelin karo haddii maanta luqadda ingiliishka aad iska xalliso oo aad si comfortable bulshada aad kula hadli karayso waxa weeyaan waa wax weligaa allaha cimrigaada kula joogo aan kaa dhammaanayn soomaan aan kaa dhammaanayn marka hadiyadda ugu wanaagsan ee naftaada siin karto waxa weeyaan inaad naftaada wax barto alright marka waxaan u gudbaynaa 10 daqiiqo oo demo time ah platformka ayaa u gudbaynaa shaashadda ayaan bedelayaa wax ka baro academy sida loo isticmaalo ayaan sharaxaad ka bixinayaa marka shaashadda ayaan bedelayaa 1 minute iyo dulqaata okay alright marka applicationka wax ka baro college aad soo gashid oo mobilkaaga ka furatid ama website-keena wax ka baro aad booqatid shaashadan ayuu kugu salaamayaa welcome to wax ka baro college ayaa lagu leeyahay videogan ayaa kuu soo dhaweynayo marka adiga si aad cashirkaad u gashay hadda cashiradaada active ay ku yihiin 10 maalin oo free ayaa haysata 10kaas maalin ayaadna kaga faa'iidaysan doontaa waxaad taabanaysaa oo keliya badhankan aad ku weyn wuu fudud yahay marka nidaamkan wuu fudud yahay wax badan oo isdabayaacayo website-yada iyo applicationada qaar aad ka dhex arkaysid ma lahan waa hal video soo dhaweyne iyo waan cusbahay iyo waan diiwaan gashnahay adi marka waxaad taabanaysaa haddii username iyo password lagu abuuray waan diiwaan gashnahay ayaad taabanaysaa kadibna email iyo password ayuu ku weydiinayaa emailkaaga iyo passwordkaaga ayaa gashanaysaa markaa gashatid emailkaaga iyo passwordkaaga markaa gashatid wuxuu kuu soo saarayaa meeshii aan koorsadaada ka qaadan lahayd ayuu kuu soo saarayaa hadda markaan aniga gudaha u galo kale mali maqlaa good ay mood ku jiraya Janis waa idin sii doonayaa dadkii raba inay hadlaan Janis waa idin sii doonayaa waa wax good marka halkan ayuu ku keenayaa koorsooyinkaaga halkan ayay kugu wada diyaarsan yihiin marka waxaad taabsanaysaa oo keliya haddii koorsada lagu activate gareeyo already waa idin activate gareyna ardadoo dhan waa geli karaan macalinkiiyo buugga gacanta ku haya ayaad arkaysaan koorsada enroll ku tahay waa taabsanaysaa oo keliya kelig ayaa siisanaysaa kelig markaad siisatid waxaa kuu soo baxayo cashirkii ayaa kuu soo baxayo cashiradii ayaa kuu soo baxayo iska suganaysaa markay kuu soo baxaan halkan ayay cashiradii kugu diyaarsan yihiin halkan ayay cashiradii kugu diyaarsan yihiin marka halkan ayay cashiradii kugu diyaarsan yihiin
halkan ay casharadii kugu diyaarsan hal mar as maqalnaya mood gala casharadii halkan ay kugu diyaarsan yihiin ayagoo fara badan marka maalin walbo waxa laga rabaa hal cashar laba cashar saddex cashar wixii kartid ay ka qaadan karaysaa sidee u qaadanaysaa marka waa kana casharka ugu horeeya ayaa furanaysaa lesson 1 ayaa furanaysaa alphabet haddii alphabetka lagaaga bilaabay haddii kalena wixii kaloo lagaaga bilaabay ayaa kuu soo baxayo videoga waa kana uu kuu soo baxaya waa dhegaysanaysaa kadibna meeshaan badhan ayaa kugu soo qormi doonto mark complete ee kugu qoran tahay badhanka ayaa taabsanaysaa kadibna casharka xiga ayaa u gudbaysaa tig ayaa kuu saarmaysa marka saas ayay ku wadaysaa kadibna casharka ku xigo casharka kusii xigo casharka kusii xigo ayaa kuu soo babaxayo marka waxaan rabaa hal problem oo arday inta badan ay wajahaan in halkan aan ka xalino kadibna waa soo gabagabaynaynaa problemkaas oo ah layliyada ama exerciseyada ka shaqeyntooda cashir walba sidaad arki karaysaan layli ayaa la socda layli soo maahan hadda kuwaan oo dhan waa kasoo shaqeeyey waxaan rabaa marka kan inaan ka shaqeeyo kan afraad inaan ka shaqeeyo haddii aadan layliga ka shaqeynin hore ma u socon karaysid tiimku ay kula hadlayaan cashiradii waa qaadanaysaa laakiin layliyada kama shaqeynina lagu leeyahay layliyada ka shaqeeya marka see looga shaqeynaya waa layliyadu waa taabanaysaa oo keliya markaad taabatid wuu kuu furmayaa kadibna start quiz ayaa leedahay start quiz markaa dhahdid su-aalihii ayaa kuu soo baxaya marka su-aalaha ayaa ka shaqeynaysaa marka waa taabanaysaa kadibna waxaa lagu leeyahay ereygani sida loo hingaadiyey ma sax baa thank you sax mise qalad luqadii cashirkii ayaa kusoo barata haddii ereygan sidan ku saxan yahay sax ayaa leedahay ama qalad ma fahanteynaa filayaa ereygan englishka micnihiisa oo soomaali ha sheegay zibber marka micnihiisa oo soomaali cashirkii ayaa kasoo dhegaysatay waad dooranaysaa midkee tahay marka jinyeer iyo wixii lamidka saas ayaa ku wadaysaa marka marba mid ayaa dooranaysaa ilaa intay okay internetka iga baxay waxaan filayaa waa weli waa maqashinaa filayaa haye isu marka shaashadeedana waa aragtiin good all right thank you waa mahadsantihiin marka okay marka sidaas ayaa ku wadaysaan layliga waad ka shaqeynaysaan ilaa intaad ka dhamaysaan marka hadda aniga waxyaabaha qaarna wuu iga sixi doonaa waxyaabaha qaarna wuu iga qaldi doonaa all right good wuxuu ii soo saaray 40% inaan keensaday marka waxyaabihii aan qaldana waa kuwana waxyaabihii aan qaldana waa iga saxayeen marka haddii aadan fahmin qaabka layliga looga shaqeeyo mar walba waa lagu adeegi doonaa tiimka ayaa kuu shaqeyn doona marka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo hal problem oo ama hal issue oo aad iyo aad u weyn iyo sida aan ku xalino issuegaas oo ah speakingka ardaydu waxayna dhahaan macalin qorista iyo akhriska iyo waan ku fiicannahay iyo fahanka luuqadda laakiin caqabad waxay iga haysataa speakingka maxaan ku xaliyaa speakingku waxaad ku xalinaysaa inaad practice samaysid practice fara badan inaad samaysid si aad practice u samaysid marka ma waxaa ku qasbantaha ma inaad dad ajnabiga aad raadiso aad la practice garaysaa jawaabtu waa maya ajnabi uma baahnid inaad practice garaysid systemya ayaa jiro hadda anaga systemkeena marka waxaan leenahay system comprehensive ee oo cashiradeena la socdo oo la dhaho speaking english programs wax kabar speaking english program ayaa la dhahaa marka waxa weeyaan waa nidaam aad iyo aad u fiican oo aad u fudud oo mar walbana kaa caawinayo waa kartoon mar walba su-aal buu ku weydiinayaa su-aashaasi waxaa laga rabaa inaad ka jawaabtid cod aad maqli karta kaga jawaabtid kadibna haddana su-aal kale ayuu ku weydiinayaa haddana waad ka jawaabaysaa kadibna asigaa jawaabta ku saxayo waa qof mar walba ku hortaagan oo kula sheekeysanayo mar walba aad u baahatidna aad u wacan karayso weeyaan oo ku diyaarsan waa barnaamij aad iyo aad Is your name Sean? Is your name Sean? Ayuu dhahay magacaada Sean miya marka waxaa leedahay no my name is not Sean ayaa leedahay asagaa marka u jawaabaya marka waxyar kadib No, my name isn't Sean. good
Is your name Tim? good saas ayuu maanta dhan su'aalo kugu celcelinaya su'aalo fudud ayuu marka hore ku weydiinayaa oo levelada bilowga su'aalo fudud ayuu weydiinayaa su'aalahaasi fudud marka waxay ku barayaan inaad jawaabaha fudud ee asaasiga ah aad baratid carabkaadana practice oo ku qaato marka aad heerarka dhexe gaartidna su'aalaha waa sii adkaanayaan su'aalo waaweyn oo jawaabo dheer u baahan ayaa lagu gaarsiin doonaa marka adiga waxaa laga rabaa inaad mar walbo aad sidaas oo kale uga jawaabtid kadibna asaga jawaabta aad ka saxatid live session kana labada jeer isbuuca la qaatana haddii aad soo gashid oo speaking kana aad xooga saartid 100% luqadda ingiriiska ku hadalka qaybteeda dhinac ayay kaga dhici doontaa warka waa idinku dheereeyaan filayaa 10 daqiiqo ay noo hartay 10kaasi daqiiqo insha Allah qofkii su'aal hal iyo laba qabo ee gacmaha ayaa soo taagan karaysaan waa idinkaga jawaabaya insha Allah Assalamu alaikum معلم. wa alaykum assalam abtana ugu horeysa abtan go ahead معلم is there any possible ma la samayn karaa markaan joogno meelaha dhexo aan sii qaadano after 10 days in for life laba arday ay wada sheekaystaan English ha live kana soo galnaa oo laakiin English aan ku sheekaysano ku wada hadalno adigana aad ka ahaatay sidaan u hadlayna aad naga toosisid si fiican English waxaan sameynaa maalin walba talaadada saan oo kale u soo galnaa conversation toos ayaa la qaataa wixii qaldan anigana waa ka warhaya waan soo galaa ardaduna ayagana si separate waa isku wacdaan oo dadka isku deegaanka oo kale ama magaalooyinka isla joogo kale si luuqa iskula baxaan private waa sameeyaan si publicna aniga iyo ardada waan u sameynaa okay sorry waqtiga waa yar yahay because time badan ma harin only you have 10 minutes so the other question I want to ask you and if I want writing how I can write to sentence to sending you as a homework waxaa jiro waa hawshaas waa casharadii ku jirta aba compositional lagu diray compositionada ka soo shaqeeya lagu leeyahay waa soo qoraysaa marka waa laga saxayaa systemka ku soo qoraysaa xagee ku qoraya because waxa dhan waa click the number so how can I write maya meelaha jiraan waa arki doonaan ani hadda waa idin dul mara mooyaane laakiin casharada compositionka way kuu soo bixi doonaan space kuu soo baxayo sheeko lagu qoro okay the last question I want to ask you because I don't want it for the beginning class so how I know for my level and how you sending me or every individual you sending for the everyone for the lesson good waa abtan imtixaana jiro markii lagu diiwaan gelinayo in imtixaan laga qaadin kala ma hubo imtixaana jiro la iska qaado haddii imtixaankaasi ku baastid levelka intermediate ka laga bilaabaya waa ku baastay imtixaankaas waxaan keenay 60 40 buu ahaa 46 baan keenay masha Allah good job marka levelka ka diiwaan geliyeen waa levelka dhexe weeyaan haddii laakiin levelka beginnerka si by accident lagaga diiwaan geliyeen ii badala leedahay insha Allah okay thank you very much welcome Ali adow soo dhawow Ali adow haddii su'aal qabtid mikrofoonka adaa haystaya alright Ali waa ka gudbaynaa Anisa Noor السلام عليكم. عليكم السلام أنيسة صدقة. كان بين لك 3 months يمكن العكس كنت تبي وقت أنا بروح بصادره. 3 months وأصور عشان كنت problem الآن. واتساب كله لصو هذا. Okay. أنا ما كنت شو أكله. I don't see nobody. That's kind of other بقى كده. I don't see nobody else. maya waxa weeyaan waa dadka kaamirooyinka u xiran diiwaangelinta iyo WhatsApp-ka la hadal WhatsApp-kii lagala soo diiwaangeliyo la hadal insha Allah wixii howlaha lacagaha quseeyo halkaas laga caawinaya okay thank you that question waa important aku daraadna Allah iyo macna no problem question kale waxa waaye midka ku baran karnaa sometimes like week maxaan baranaynaa medical you know like medical vocabulary okay vocabulary medical ka quseeyo baka tafsiri baka joogto kala maragtay asarka baka joogto kala wixii leeyahay cod gooni u leeyahay waa baasan soma I know waxaa la dhahaa medical terminology medical ku gaarkee caafimaadka u gaarkee kaas gorma hal mar ma noogu dadka taacay ina waxaan waxaa la qaadana hatta marka joogno waxaan yarka levelka yarka ah waa ariyo ala ku aan dilaan karnaa laakiin balaa waxay ka taagan tahay marka lagu dhaho kaas waxa weeyaan ma fahmo emailkaaga waxa ka soo bixisay maxaa la diiday emailkaaga waxa ka soo bixisay
last patient last time macnaha istaagka markuu aaday kasoo bixi lagu dhaho waxyaabahaas oo kale u baahanaa iyo macnaha iyo qofka cudurrada magacyadooda cudurrada magacyadooda aad iyo aad waa wax weeyaan waa naqaanaa caadi waa dareemaya waa maya anisa waa barnaamijkaas waa barnaamij specialized weeyaan waxaa jiro baahiyo gaar ah waa la dhahaa baahiyo gaar ah la dhahaa si guud anaga uma sameyno general englishka dadka barnaa laakiin haddii aad luqadii si general u baratid waxa kale ee medicalka ama adiga si field gaar ah kugu quseeyo kale aad iyo aad ay u fudud yihiin. Okay, thank you. Hi, welcome. Good. Aadan Daahir, soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maliya maqlayaa dhammaan. Aad iyo aad lagu maqlaa. Macluumaadka waan ku salaamayaa aad baad mahadsan tahay waqtigaadna siisay eedna gelisay allah ka jisaysiiyo dhammaan ardayda intaa joogtay ee u samirtayna kulley waxaan ugu samirnay uma qabnay dhammaantood iyagana waan salaamayaa. Aad iyo aad. dee Soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin walba halkii bugtaa isagii bilbasha. Aad iyo aad. cudurka iyagu horta isbitaal ahaan say gabadhaasi sheegaysay horta kulley iyadoo ingiriiskii baahi loo qabo haddana si gooniye wax kale ugu sii baahan too baahiya haba ahaatee anigana dhibkaygu maanta haddaan duxda usoo daadego waxa weeyaan luqadii sidii aad horeba adigu u dhawaajisay I know everything I understood mashallah dhibku wuxuu ka taagan yahay inaan celiyo wixii jawaab celiso wakaas waa muhiimadana horta waa bad ii sheegtay laakiin haddana tafaasiilad badan baan u baahanahay oo kulley waan baqaa wallahi shayn badan baa iga muuqda kalsooni xumo markaan la hadlo laakiin qolkii lixdan haddaan idhaahdo waan fahmay fahankaagu aad buu u fiican yahay laakiin jawaab celintii xawaar baqdin badan ku jirta laakiin iyaga markaan iska celi isla waba hayaba wixii I don't know where is he going that ma garanayo aad iyo aad aad iyo aad ku fahmay aadan baahidaada horta kaliya maahan baahidaasi waa jirtaa oo dad badan ka cawdo luqaddu way fahmi karaan laakiin ma jawaab celin karaan horta luqaddu laba qaybood waa mahadsan tahay si guud ah waa inaan u sharxo laba qodob horta luqaddu laba jihe leedahay waa input iyo output inputka aad baan ugu fiicannahay qaadashadiisa inaan reading sameyno oo ku fiicannahay inaan listening sameyno oo ku fiicannahay waxyaabaha aan aadka uga caajisno waxa weeyaan speakingkii inaan dhisno iyo waxyaabaha kale oo aan aadka uga caajisno waxa weeyaan writing maxaa yeelay labadaasi waxay u baahan yihiin effort iyo energy iyo juhdi dheeraad ay u baahan yihiin dhiiranaan dheeraad ay u baahan yihiin ma fahantay inaad raadiyo dhageysatid maanta kun jeer ayay ka fududahay inaad hadasho soo maaha marka ama speaking samayso ama afka la qaado marka annagana baahidaasi dhibkaasi ardadu horta ka horeysana wuu haysta kuwa hadda joogana wuu haysta kuwa soo socdana wuu qabsan doonaa marka sidaas daraateed systemkani ayaan juhdi waqti gelinay si uu qofka at least meel yaroo private oo asaga oosan ka xishoonaynin oo luuqada jawaab celinta si tartiiba ugu barto ma fahantay su'aalo yar yaroo fudfudud lagu weydiinayo kadibna way sii waaweynaan doonaan oo aad ku sii barbaratay inaad jawaabihii celceliso kadibna si tartiiba jirkaaga ama afkaaga wuxuu la qabsanayaa jawaab celintii markaad bulshadii aad dhex tagtane si tartiib ayay kalsoonidaada kugu ziyaadi doontaa marka waa 60 cashir oo speaking oo kaliya ah oo systemka ku jiro isbuucii hal ama laba ayaa laga soo geliyaa halkaas iyo labadaasi 10 daqiiqo camal oo soconaya 10 daqiiqo su'aal lagu weydiinayo oo aad ka jawaabayso haddii aad isbuucii laba jeer aad ka hesho waxaan dareemayaa 6 bilood markaa wado inaa isbedel weyn arki doonto insha Allah oo dhanka kalsoonida jawaab celinta ama santaa markay aadan haddii su'aal kala jirin aad iyo aad عنب قفك وانت عنب go ahead عنب وكبحثان في لايم سواء ميكروفونك كحرا alright عنب waqtigeedu waa ka faa'iideysay halkii saac aan ugu talagalna barnaamijku uu naga dhacay haddii ay su'aalo iyo jiraan waxaan kaloo idin xasuusinaynaa horta casharada hadda dhammaantiin waa idin wada furan yihiin systemku waa geli karaysaan waa qaadan karaysaan marka haddii wax fahmi weysaan ama wax problem idin qabsado ama cilad la kulantaan hay go ahead waxaa ku dhiiraya bas leeyahay maalmaha oo la soo galayo oo la qaadanayo baraatikada maalmo oo qaasa meeleeda mase ha maalmo qaasa leeda waa in loo baahantaas waa ku mahadsan tahay waa sabdiga iyo talaadada labadaas maalin ayaa sidaan oo kale usoo galnaa
waqtigan hadda aan soo galnay un baana soo geli doonaa sabdiga iyo talaadada lagu talagalaa. Okay, Ustaad, thank you. aad iyo aad u mahadsantihiin. welcome. wixii kaloo idin dhiman ama su'aalo idin ka soo laabto ama cilad aad la kulantaan cashiradii aad fahmi weysaan whatsapp kala soo hadla insha Allah waan ila caawinayaa. mar kale soo dhawaada. Dhowna macallin waa